inagu maanta aakhira waan ka baqaynaa, dhimashada waan ka baqaynaa, xanuunka waan ka baqaynaa, faqriga waan ka baqaynaa. Fawallaahi mal faqru akhshaa calaykum. Nabigeenu calayhi salaatu wasalaam mambarka masjidka intuu maalin fadhiistay oo saxaabaduna ay hareeraha nabiga ka soo fadhiisteen ay buux dhaafiyeen, ayuu nabigeenu saxaabada ku yidhi wallaahi baan ku dhaartay anigu faqri inaga biqi maayo buu ku yidhi. muslimiintuna maanta waxa ugu horeeya ka baqaynaa waa faqri weeyaan. nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaamna waxa uu leeyahay wallaahi baan ku dhaartay anigu faqri inaga cabsani maayo, bal waxaan iga cabsanayaa waa khilaafa dalika, iga cabsanaya waa bilcagsi, waxaan iga cabsanayaa in adduunyada laynii furo ziinadeeda iyo quruxdeeda iyo bidhbidhkeega iyo ubaxeega in laynii furo, deedna aad istiraadaan u kala badiya ood u kala badisaan adduunka, deedna marka dambana ay nii halaagto sidii kuwii inaga horreeyayba ay u halaagtay. taasaan inaga baqayaa buu nabigu leeyahay sal alla alay wasalam. waxa maanta la isku nacaya waa adduunyo, waxa la isku leynaya waa adduunyo, waxa la isku baabi'inaya waa adduunyo, waxa calolxumada la iskugu qaaday waa adduunyo. labadii wada dhalatay adduunyay ku kala tegeen maanta, labadii isdhashayna adduunyay ku kala tegeen maanta, labada isqabtayna adduunya isku furaan maanta. nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaamna wuu nooga digo wuxuu leeyahay anu adduunyaynii faqri iniga biqi maaye, adduunka in laynii furo, albaabada layniiga furo oo ziinadeeda iyo zahradeeda laynii furo ood u kala badisaan oo tirahdaan kana fooq dhistay adiguna dhiso, kana beer fashay adiguna beerta falo, kana mansab hele adiguna mansab hel, kana aqala dhistay adiguna aqala dhiso, ood adduunka u kala badisaan, deedna marka dambana ay nii halaagto ama ay nii seejiso aakhiradiinnii sidii kuwii inaga horreeyayba ay u seejisay buu nabigu u dagtay u halaagtay. waa taa maanta aan ku jirna weeyaan. marka Faaduma radiyallahu anha geerina kamay baqayna, bal way qosashay markii geerideeda loo sheegay maalintii sankaraadku ay qabtay ee sankaraadku uu haleelay ayay ku tiri dumarkii reer Madiina dul joogay meydkayga raggu inay arkaan ma jeceliye sida meydkayga lagu qarin lahaa ka tala bixiya bay ku tiri meydkayga. bariga sariirahan innaka dhulkeennaba dadka lagu qaaday inta badan imka dhakhtarada qofka lagaga soo qaado in meydka dhaqdhaqaaqiisa la arkaya bariga dadka lagu qaadi jiray qoryo caynka inta loo sameeyo. أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجتي جعفر بن أبي طالب وأرض الحبشة مركا إنتي وهجروا تكسر نقطي آيات أرض الحبشة مركا جوجني وحكو أرك نعش كدوان باكو أركيو سرير قفك إنتو لقول نحردو أفرت رنعنا مرة لك كحرو قفك الله أركين با آيا كسو أركيتري مركا متر إلهي خيرك وسيه زوجي علي بن أبي طالب وشي بيت نعش كهي سميه نعش كابا مركا الله سميه لأنه والله حردي أفرت النعبة مرة الله كحلو عندنا ما أركن قبرك أنا واحد كودا دعية إن مدري ننكي زوج كي قبرك كودا دعية ولا كي حشوت قوات واقع حشوت أستر كجبل المسلمين لما جربها كذا يتفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام gabar ka khayr badan oo ka sharaf badan oo ka laandheersan ka reer wanaagsan oo ka nasab wanaagsan adduunka ma soo marin ogow. محمد بن عبد الله بأبوها خديجة بنت خويلد بان وحيد هو يوحيد وعين ما ركتاني ودحدي علي بن أبي طالب وأنك نبي محمد ويري عيدك خيبر فرندون وحن علك وقدي بدونا نن إلهي رسولك ويجعلهين يسقون إلهي رسولك يسجعل وعلي بن أبي طالب نكاس لبدا ويلي دشنا وحسن يا حسين رضوان الله عليهم أجمعين. والله بدأ النبي محمد ويري شباب كان جنة قلدون والله بدأ وقصر رئيسه وقبر وقبضا مركان أركان مجوغي كرو خطبة النبي وسووا خطبتين مسكين كسوق قلعين وأوتي النبي وعلكي بكسوع حنبارو خطبة كل صور نقضي أسار يوحد الله بدأ مركان أركان مجوغي كره وكذا دقوا خطبة يكانوا دعوا مجوغي كره لبدا أنك جعل هذا الإله وجعله النبي ويري لبدا أنك وعرض الإله وعرض رسول ويري. فاطمة لبدا سيدشي ugu gabadha usradda barakaysan ka soo jeeda ayaa laga bartaa xishoodka akhlaaqda wanaagsan iyada ka baro dhaqanka wanaagsan iyada ka baro jirkaaga qari inta qari karta jirkaaga qari
jilbaab baa ilaahay ku qaado jilbaab waa maro nuuceeya waa maro haday inanta yar ay qaadataan islaam weyn loo malaynayo islaam weyn haday qaadataan inan yar oo 12 jir oo meesha maraysa loo malaynayo تقروحنا بدل لنا إلهي قروحنا وخدنا جلباب وقروحنا أو قرية تقروحنا أنا اللورد ما يسترين قروحنا وأي ناقص أي تحي قروح بدل الله حين حجاب قيمه ويلا قيمه أو قبل ما أنت أسطورنا قروح جوبتا نوال ما أنت إيش وصوتك يا ولي ورر كاسا قبل عسى قبل الله يدسو بركب جلباب وحكم إنك إني خاصة ويان ومرض dhulka jiidanaysa jirkaagana qareynayso asturaysa qurux badan oo dadku ay soo daymadaan aan ka muuqan hatta jilbaabka ay culimadu u yeelaan ahkaam buu leeyahay ahkaam toban baa lagu sheegay ilaa 10 shay inuu jirka qariyo inuu isha raga soo jiidan oo faal xumaado inuu maro weyn dhulku jiidanaysa uu noqdo wama ila dalika ahkaam ay ka soo leeyahay marooyinkaas noocaas markay gabadha muuminadu ay xidhato quruxdeeda ilaahay u joojinaya gabadhaas ugu ihfadillaha yahfadka nabi ilaahay markaad ilaalisid adu amarka ilaahay ilaali nabigu ku leeyahay adiga ilaahay baa ku ilaalin oo muxuu ku ilaalinaya waxaad haysataa ilaahay ku ilaalin cadowga ilaahay ka ilaalin xasadka ilaahay ka ilaalin ayna naaska ilaahay ka ilaalin sixirka ilaahay ka ilaalin fasaqadii fajarada ayaa ilaahay dhibtooda ilaahay ka ilaalin gabadha asturan ee xijaaban wada aragteeno waa muxtaramad hatta kuwa ciyaalka suuqa ila dhalinyarada dariiqa fadhiisata ayaana isha ku soo taagan oo gabadha ixtiraamaysa waxa lagu ixtiraamaya lana gabadha diin baa ka muuqata maadaama ilaahay aad ka baqaysid ilaahay dadka qulubtoodana haybad buu galin haybad baa ilaahay ugu tuuriyay waa laga haybaysan waa lagu ixtiraami bal waa lagu adeegi waa lagu khidmayni inta gabadhu dharka ay sidatana bay culimadu leeyihiin cibaada loo qoray waa cibaado kaanaha in salaad iyo soon iyo cibaado ku jirto kale lama tahalay limaada xijaab gabadhu dharka jilbaabka qaadatay aqalkeedii bay ka baxdo dukaanka ama suuqa ay muraad u yeelatay way ka soo adeeganaysaa waa cibaado ku jirta bay culimadu ku leeyihiin limaada dharkan ay xiran tahay wa amar ilaahi maadaama amar ilaahi ay nolosheeda ku fulinayso inta ay socoto dhan waxa loo qorayaa maaragtaan ajar iyo xasanaad baa loo qorayaa wa ahkaamta khaaska u ah haweenka waxa kale oo khaas ninka inni ah oo rag ay nila qabin waqarna fi buyutikunna ina gabadha noqoto gabadh guri jooga nololiga iska fadhida Hafsata bint Sirin gabadh saalixada oo muhaddithada bay ahayd عالم من علماء الإسلام ولا دلتي waxa kutubta ku qoran 30 sanadood baa la yiraahdaa masalladay ku dul tukanaysa kama kicin baa la yiraahdaa inagana ma sha Allah zamankeenan suuqa Hargeysa dad u dhaadhacdo iyo magaalooyinka suuqa magaalada Djibouti ku yaalay waxa socda boqolkii 80 oo dumar baa dariiqa socda jamaacadda Eeshiyaanka dacwada u yimaadeen dalkeena ku soo baxa ayaa bari waxay nagu yiraahdeen waniyo dumarku dhulkiina joogan walwaalan yihiin markaas bay way fiyoyin waa marwooyin xirma dariiqa hada waray waxay la wareegayaan markaas waniyo gabdhaha naga caayay may bay ku leeyihiin may bari dambaan markaa dhulkooda aan safar ku tagayo magaalo waxaan tagay 22 milyan oo qof ay ku nooshahay Dhaka magaalada caasimada Bangladesh Dhaka 22 milyan oo qof ku nool gudaheega ilaa 6 milyan oo soo shaqo tagtaa ka rawaxda hal gabadh oo dariiq fadhida waan ka arki weynay hadday socotana ama abaheed baa gacanta haya ama walaalkeed bay la socotaa ama ninkeedii bay la socotaa ama inankeedii baa hor socda saylada xoolaha tagnay rag baa ka iibinaya suuqa khudaarta lagu iibiyaa tagnay rag un baa iibinaya hada xawaashka rag baa iibinaya dumar ma iibinayaan ka soo galayaan bay ku leeyihiin ay soo doonayaan barigii hadalka ninku igu lahaa war xasuusto lahaa warniyo dumarka dhulkiina jooga may walwaalan yihiintii ayaan xasuustoonay warninkii waxa uu sheegay ilaa waa runtii kuweegu ma dhamaada marka raaliga hada caroonine
inagu kuwii fiicnaa aqalada fadhiyay baatiina gabdhaheena yar yarna aqalada fadhiisiya oo gabadhu min inta 9 jir ay gaadhin oo la dirdiran karaa bay culimadu leeyihiin oo dibadda waa loo dirdiran karaa laakiin 9 jir gabadhu hadday gaadho aqalkeena ka baxda ma hadii toole waa in aqalka dhex fadhido حتى دين هذا برنيسو إني قولي كذا كبر تاو خير بدن قبل ما نبي جينا وتمي دوتر يا رسول الله صلاة هذه قداش هذين كنت كذون مسكيت يا كقولن تكذان جعلها كورن برقام النبي يقول هو خير لكن صلاة المسكيت يا كنت كنيس ونبى أنا قداش صيدا هاد كنت كنيس وحكى خير بدن صلاة أقل كاجا حديث هاد كنت كنيس حكى خير بدن اللي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هواك يرقوا ما كان حنين مساجد النبي قيبت هورنا الرجع اسكالها قيبت دحانا دليرada ku tukanaysa caruurta yar yar qaybta dambana marka waxa ku tukanay maaragtana haweenka oo nabigu wuxuu yiri safafka ragga safka ugu khayr badanna waa ka hore buu nabigu yiri kooga ugu shar badanna waa ka dambe safka ragga ugu dambeeya safafka ragga ugu shar badan maxaa loo yiri laana xaqi ubadka iyo xaqi dumarku xiga dumarku nabigu ka hadlo wuxuu yiri safafka haweenkana ka ugu soo horeeya ugu shar badan ka ugu dambeeya ugu khayr badan buu nabigu yiri kullama gabadhu ay ragga ka dheeraato ay khayr ku sugan tahay kullama ninku uu dumarka ka dheeraadana ay isaguna khayr ku sugan yahay ugu marka inay guriga in la joogo ayaa gabdhaha u khayr badan gabadhu guriga maxay ka qabanaysaa guriga waa madrasad guriga masaajid u ah guriga ayaa maaragtaan meesha ilaahay kaga xidhmaysa waa guriga وليد مغيرة بن شعبة النبي قوي مدي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه مركز يا رسول الله قوات بان ليس يقولي مركز النبي يقول ما أركتي ما أرك قولي مركز النبي يقول كن نقاء صارك بنا وجهين إن لقاك الشيكايو الشيكا لقو جعلي سيو iyadana looga ka sheekayo sheeka ay kugu jeclaato waxa kaaga khayr badan iyadana oo khayr badan inaad aragto wajigeeda kugu qanacdo aad ku qanacday waa hal mar kaliya halka mar baa loo golyaa gabadha wajigeeda in la arko marka uu soo noqday saxaabigi reerkii gabadha marka odaygii inanta dhalay gabadha siiyay ayaa ku yiri iyuu ku sheego wallahi arintii nabiga uu sheegay sallallahu alayhi wasallam nabigu wuxuu ku yiri ma aragtay maya nabiga ay soo amro yiri hal lagu tuso odaygii marka islaantiisii ag fadhida uu soo eegay islaantii aqalka dhinaca ka fadhido ninku uu arkaynin ay soo eegay nama maqlaysaa imlaayoy markaasay tiri waa yaab wallahi la yaab markaasuu ku celiyay hadalka war maxaa tiri nabiga ay soo diro yiri gabadha hal lagu tuso arag wajigeeda markaasuu ninkii way cuntami weyday limaada laana urfiga ma yaqaana ba carabta kana mujtamaceena maanta u fiirsada maanta waxa loo qarsooba ma jira uu yahay maanta banaanka gabdhaha leeyahay maanta markaasuu labadii waalid odaygu marna islaantu xagan ka eega isaga xaga dambe ka fadhidaayo ninkan ma arkaayo marna islaantu eegaaba la yiri marna isaga uu yaaban yihiin inantiiba marka xaga dambe fadhidaa markaasay aragtay labada waalid oo arrinka dhibsaday ayada marka hada soo tiri hooyo iyo aabo ha dhibsanin arrinkaas ana ninka la hadlaya ii baneeyo marka ay ku tiri wariya hadii nabi maxamed oo amarka soo bixiyo waa ku tusin wajigayga haduu nabi maxamed amarka uu soo bixina anu arrinka waan dhibsanaya iga dhaafay ku tiri gada marka uu nabiga amarka soo bixiyay intay soo baxday qoorta inta uu la soo dhaaftay labada waalid ay niqaabka iska qaaday tustay bal wajigeedii deena markaan uu isku celisay bas marka uu arkay Mughira bin Shu'ba wuxuu yiri gabadhii waan guursaday gabadh iiga maamuus badnayd oo iiga karaamo badnayd iguma soo maray muddo adduunka Allah kala fiirso 70 gabdhoodna marka waan guursaday 70 baan markii 70 marka saxaabadu afarta sharcigu u banaaneeyay iyo waxa u dheeraa iyaka wama malakat aymanukum kun leeyada quraanku sheegay marka gaalada ka adkaadaan gaalada jibiyaan ee ragi gaalada cadowgi gaalada ahana ay wax la ilaayeen iyo waxay dhaawaceen iyo waxay xidheen iyo wax baxsaday ay ka yeelaan reerihii marka ragga gaaladu ay ka mas'uulka ahaayeen ee ubad lahaayeen dumar lahaayeen duqa lahaayeen gabdha lahaayeen wiil lahaa ay saynin u dayacmin
ay shareecadu intay soo qaaday tiri amiirka intoo loo keeno ama nabiga intoo loo keeno ayuu nabigu saxaabadiisa markaas si cadaalad ugu qaybin jiray si ummadda xilkeedii iyo mas'uuliyadeedii meel loo saaro marka qaarkood ragga saxaabada dumarka loo qaybiyay marka wama malakat aymaanukum wa adoomay u noqonayeeno iyaga marka iska milkinayay oo xaasaskooda u noqonayeen markaas Mughira ibn Shu'ba wuxuu yiri gabadh iga karaama badnayd marka ma jiro waxa ka wada oo qisada aanu soo qaatay in gabdhahooga la arka waxay ahayd mustaxiil bay ahayd way asturnaayeen gabdhuhu oo asturka uu horeey gabadha ku asturneed waa alkee waa guri joog guriga ku cibaadeysan guriga quraanka ku baran Aisha radiyallahu anha aqalka kamay bixin hadana waxay noqotay saxaabada ragga ugu waaweyn markay yiraahdaan ay mas'ala diiniye la weydiiyay ibn Abbas ibn Mas'ud ibn Umar marka masaa'isha diiniga la weydiiyay bay oran jireen ummul muuminiin Aisha ma soo weydiisay hawa soo weydiisanay maxayna tiri waxaabayna tiri waa sidayna tiri dhaqaaqa oran jiray Aisha dibay laga daba hadlay maaye ilmiga halkaas ka gaadhay Aisha ibn Abbas iyo ibn Mas'ud hadday maqlaan Aisha ayaa mas'alada la weydiiyo sidaa bay tiri waxa oran jiray waa sida hooyada tiriye dhaqaaqa baa la oran jiray sidayna tiri ku qaata cilmiga waayo gurigeeda cilmiga ka baratay meel kale cilmiga kamay baran oo zawjgeedii bay ka baratay Muhammad alayhi salatu wasalaam Aisha taabiciintu intay u yimaadaan bay oran jireen yaa ummul muuminiin markuu nabigu nala joogo sidoo u dhaqmay waan aragnay waan kaga dayanay markuu guriga joogo nabigu muxuu qaban jiray bal noo sheeg ha ku dayanay markaa bay oran jirtay nabigu bashar buu ahaa bini aadan malag ma hayna bashar bini aadan ayuu ahaa bimaana sidaatihiin uu buu ahaa marada ka dilaacdayna uu karkaran jiray kabtiisa ka goodayna uu tolan jiray neefkiisana uu maalan jiray annagana aqalka dhexdeeda uu nooga adeegi jiray walaakiin salaadu haday gaadhay tiri Aisha radiyallahu anha nabigu salaadu u bixi baytan meel kale uma dhaqaaqo jiray bal firso hadana masruuq oo yimid taabiciga ajiibka ah oo yiri yaa ummul muuminiin rasuulka tabiicadiisa nooga waran markaa bay ku tiri quraanka ma akhrida hawaan akhriyaa buu ku yiri markaas ay ku tiri nabigu quraan socdo u buuha ruuha quraanka oo socdo ku dhaqmaya buu nabigu waxa quraanku diidana nabigu uu diiday waxa quraanku ogolaadana nabigu waa ogolaaday waxa quraanku xalaalayna nabigu waa xalaashaday waxa quraanku xarimayna nabigu uu xarimay waxa quraanku uu dadka ugu yeedhay nabigu umada ugu yeedhayay waxa quraanku umada ka reebay nabigu umada uu ka reebay isaguna quraan socdo waa rasuulkeenu oo dulqaad badna oo naxariis badna ودبرين بدنا نبينا عليه الصلاة والسلام ودبرين يا حتى حريق بو أركي مسكيت كلا بدأ تلقون حدا مركب النبي يقول حريق أنا يا حدا زينب حدا تاني بيقولوا لي زينب وقوي النبي حريقي معك كدكتا صلاة الليل كمركي كده شيء استكتاي قبضتها بالمولد بالفرس أزواج النبي عليه الصلاة والسلام المطهرات ضمرك النبي محمد الطاهر كاها عبادتي كدا لين أنا كمان هو يمكن أما ولا لهين وحي كدا لان الدنيا كدا لي مانت الدنيا ما حينه درميل بان كدا لي درميل بان نقول داليني نك داري كريم بان نقول داليني زمن كوغاس حاجات كوغو كوبنا داركو ما بدنين راشكونا ما بدنين عبادته بدنين halka maanta inagana raashin karinta ayaa badan darkana waa badan yahay aqalka marka darka la meedayo ku dhari lagu iibiyay dood aqalka islaami waan daalin ruwaynaka nuqsaantu anaga kabadha dharan oo xareysan wallahi waan daalinay ciyaalkiiba dhinac dharka ugu xidhi mar ma aragtaan ciyaalkiiba cuntada u karin odaygiiba cunto khaas u karin dharkaagiiba gacanteeda kugu meeydi gogashaadiiba iyadoo aqalka ku hagaajin odaygiiba soo socda bay oran hadana salaadii baa laga rabaa ubadkiiba mid walba raali gelinaysa shaqada qabataan anagu ma qaban karno dulqaadkana ilaahay baa in siiyay runtii waan in daalinay annaka in daalinay waayo ragga ayaa maanta tarbiyadoodii ay ni tarbiyadeyn lahaayeen ama ay nin nusrayn lahaayeen ama reerka xid mas'uuliyadiisa ay la wadaagi lahaayeen ragga ayaa gabaye ininku laakiin waa dadaalaysan walaalayaal waa dadaalaysan
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم uu gooyo xarigi markuu arkay xariga maxay ka dhigtaa salaad leelka markay ku daashay qabsataa nabi uu gooyo nabigu wuxuu amalka intaad kareysaan uu qabta malaa'iktu ajarka inii qoraysa kama daalaysa buu nabigu yiri ilaa inagu amalka qabashadiisa ka daala mooyaan saadarteed ashyaada xaajaadkeena han yarayno waxa ku dadaalana inaan badina ma aragtaan cibaadada salaada xilligii la gaaro dariga dabka ka dhaadhici dharka meelaysa jooji adiga ubad wixii aqalka jooga waxaad raa waysa qaata salaadii baa la gaaray waa la weydiiyay nabigeena kaleey salaatu wasalaam amal la qabto ilaahay loogu dhawaado amalka ilaahay ugu jecel yahay waxa nabigu salaadu xilligeeda la tukada rasuulku kaleey salaatu wasalaam salaadu xilligeeda la tukado as-salaatu ala waqtiha inaguna salaada xilligeeda markaad aadaanka maqashaan wax walba dhulka dhiga sida Aisha aybet ay tiri haday salaadu soo gaadho nabigu waxa lee wuxuu hayo dhan u dhigayay deedna xagga masjidka u dhaqaaqay nabigeenu kaleey salaatu wasalaam inagana waxa la naga rabaa ragul masjidkeena xaqiisa u dhaqaaqaan oo wiilashana ay gacmaha qabtaan hooyadana waxa laga rabaa iyo gabadhana inay waxay aqalka hawl ku hayso intay joojiso ay tiraahdo xilligan waa xilligii salaadeen jamacayna salaadeena mariya aqalkeeda ay ku yeelataa meel ay ku tukatay ku cibaadeysta gabadha muuminadu aqaladeena waana ku yeelana meel aan ku sunnaysano odaygu markuu yimaadana sunnaha uu ku tukado salaata leelka lagu tukado salaatu duxaada lagu tukado haween wixii aqalka joogana salaada faradka ku tukanayaan salaada faradka wastujin karaan salaada xilligeeda la tukada buu nabigu leeyahay wa a'maasha ilaahay ugu jecel yahay amal la qabto ilaahay baa ugu jecel jamaca ku dadaalayna salaada masjidka markii la galo inaguna aqalka wayna markiiba aan salaada la tukanaa cibaadadu waa inay gaalib inoo noqoto ilmaha toddoba jir buu nabigu leeyahay salaada bar maxay ka dhigan tahay gacanta qabo waxaad raaday goog tukanaya odaygu inuu inaka gacanta qabto aaba salaada kale goog tukanaya mar aniga masjidka ay raacdo tarbiyada awlaada waxay ka bilaabantaa waa labada waalid laana macallimka rasmigu ma aha macallinka quraanka u dhigay ama macallinka iskuulka ma aha macallinka rasmiga waxa weeyaan inaan isbedilaynin waa aabiyo hooyada macallinka iskuulka saacadu ilmuhu la joogaa macallinka quraanka saacadu la joogaa laakiin ilmuhu hooyadii iyo aabihi wuxuu ag joogaa sanawaad baa joogaa sanawaad lidalika tarbiyada awlaaduna waa inii khaas sigara inika leeynigu maaragtaan leeyniga raba inaad awlaad u tarbiyadeysaa oo sunnada nabigeena bartaan kaleey salaatu wasalaam sunnada nabiga waa maxay cuntada markii la cunayo misanka u qabo cuntada marka la cunayo xagaaga ka soo cun cuntada marka la cunayo maaragtaan gacanta mid ku cun cuntada marka la cunayo hadaadin haday daadatana sufrad baa loo dhigayaa wixii dhulka ka dhacay waa laga qaadan buu nabigu yiri ta dhulka ku dhacday buu nabigu yiri yaka ta gacanta ku hadhay iyo taweelka ku hadhay saddexda buu nabigu yiri taad cunteenba mid barakadu ay la socoto kama warqabtaan buu nabigu yiri lidalika sunnaha nabiga waxa kamida ta dhulka ku dhacdana in dhibaatada soo gaadhay laga biyo la iska cuno ta saxnigana laga sunneeyo ta gacantaada ku hadhayna aanan la masixin ama aan la meeriyado cuntadii faraaga ka muuqatee bal la muudmuudsado la murdiyo buu nabigu in la murdiyo sidaas loo leefleefo la murdin maayo waa la leefleefi markaas loo leefleefi ta dhulka ku dhacday iyo ta caloosha gashay iyo ta weelka ku hadhay iyo ta gacantiina ku hadhay buu nabigu yiri barakadu la socota kama warqabtaan saddexdaana nabigu cuntada uu ku cunayo kaleey salaatu wasalaam aadaabtaas la doonaya ilmaha inuu ku barto aqalka dhexdeeda hurdada aadaab bay leedahay midigta loo seexanaya aayatul kursiga la akhrisanaya macaawadateega ikhlaaska saddex jeer inta lagu tufo gacanta lagu akhriyo jirka oo dhan la marinaya bismika allahumma amutu wa ahya lagu seexanaya alhamdulillah alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi an-nushur bahabaki marka hurdada laga soo kaco la akhrinaya ilmahana la baraya tarbiyadaasi waa tarbiyada awlaada la doonayo diinta dhaqankeeda in ilmaha aqalka dhexdeeda lagu soo baro xuquuq baa isku leeyihiin jaarku xaq bay ugu leeyihiin qarabadaadu xaq bay kugu leedahay odagaagu xaq buu kugu leeyahay abi hooyo xaq bay kugu leeyihiin martida ku timaad xaq bay kugu leedahay ilmahaagu xaq buu kugu leeyahay mid walba xadiisa si
haysuran dadkan anigu xaqaygiiba kama helin maxay igu wata may xaqa lagu leeyahay iska gud xaqaad iyaka ku leedahay haday garan waayaan ilaahay baa kaaga qaadi rasuulku yiri madaxdii waa lamid madaxdu xaq bay kugu leeyihiin xuquuqdaas marka adduunka dusheeda la iska gudayaa ilmahaaga xaqiisu waa maxay yaraanta markuu dhasho magaciisa wanaaji tarbiyadiisa wanaaji tacliintiisa wanaaji Umar ibn Khattab baa oran jiray todobada horeysa ilmihiina la ciyaara todobada ku xigtana baa oran jiray edbiyo waxbaro oo tarbiyadeeya todobada ku xigtana ilmaha la saaxiib koob iyo 20 ilmuhu markuu gaadhay Umar ibn Khattab haduu tarbiyada wanaagsan waalidkiisa uu ka soo helo xadhiga qoorta u galiyo magaalada ku sii daagul ilmaha uu taabagalay hadii toole baborma abarku tarbiyada helo todobada sano horeysana uu helo waalid la ciyaaraya saawla ciyaari marka waa inaad waqti u soo reebtaa ilmahaaga oo tiraada xilligaasna waa kasbi xalaal ka soo shaqeynaya xilligaana waa masaajidka iyo dacwada iyo cibaadada iyo khayrkii weeyaan xilligaana waa xaqi reerka iyo xaqi ubadkayga iyo xaqi naftayda waqti si todobada dhaxana buu nabigu ilmaha tarbiyadeeyo edbiyo waxbara todobada ku xigtan ilmaha la saaxiib hooyaduna inanteeda waa inay geela ka dhigataa ay la talisaa oo u nasteexaysaa oo ay waanisaa oo u ducaysaa aabuhuna inankiisa waa inay saaxiib ka dhigtaa haduu 14 jir gaadhaba laakiin aawe maanta ayaa wax tarbiyadeynaya odayaashiina jaad baa dilay dumarkii baa qalada fadhiyo ubadkii odayga ku dhaxdaalay maanta marka ragana balu duceeya oo raggu inay ni islaaxan hada doonaysan khuruujka saaro jamaacada ilaahay dartuu baxay ku daran islaam baa marka ninkeedii baa 40 cisho baxay وأن جاتك عنبو هاي وجاتك قيل habeenkii kowda habeenimo qalka garaaci jiray waliba garaacitaan ma haratiba albaabka ku furu jiray baa gow isaga aniga ninka iga sheekeeyay laakiin markuu 40 cisho jamaacada uu raaco soo noqday jaadkii buu iska daayay oo sigaarkii buu iska daayay cishaay markuu ka soo baxaba albaabka furan buu yimaada markaa madax saalixadeedii aawaya waligeed saalixad kama maqal albaabka kowda habeenimo haduu soo galo waa islaantii masiibada ahayd aaway uu leeyahay cashamayna noo dhiginba iyadoo maanta wada shaqeynayso miskiinada laakiin khuruujkii markuu baxay saalixad buu ka bilaabay oo saalixadaydii janna gashadeedii jannada Allah galiyay fiicnay markaas waa maxay albaabka cishaayiga waa laga yimid ciyaalka maxad dibadda jooga soo xiray xalaqadii baan qabsanaynaa afka bay qabsatay way yaabtay war odaygi maxabad dilay ma ka dhaba muu xanuunsan yahay markuu bil sida aha laba bilood uu aha dumarkii xaafadda islaamta isku yeedhay waxay tiri waan ogahay odayaal ma haysaane odayaashiina jamaacada ku darabeetay khuruujka saara odagayga waad arkaysaa soo isku bedelay lacagtu awal ku qayilayay iyo lacagta masaariifta uu reerka siinayay to ku qayilayay baa badnayd maanta wixii oo dhan islaamtu gacanta ka galiyay markaas isaga ku qurux badnaaday oo islaantii ku qurux badnaatay oo ciyaalkii u qurux badnaadeen oo isagii uu noqday nin oday oo dacwada xaafada ka wada markaa islaantii dumarka ku boorisay leedahay nayaadahay na heblaayoy na odaygiina jamaacada ku dara na odaygiina uu isbeddelay waad arkaysaa halaha waan aragnay odaygaadu khamiis wato oo cimaamad sito dhalinyarada la wareegayo oo war miskiintiya salaada ina mariye ma jamaacada buu raacay ha jamaacadii buu raacay tabliiq baa 40 cisho kulankii buu ka qayb galo dana halka buu ka baxay ilaahay dartii oo soo bedelay oo qaadkii uu daayay qaadiya sigaar waa ninka arkay quruxdiisa maanta maasha kaliya maanta inoo furan ee ummadda lagu tarbiyadeyn kara lagu islaaxin kara waa dacwada marka wiilasheena khuruujka saara odayaasheena khuruujka saara inaguna insha Allah gurihiina awlaadina tarbiyadeeyo diintana insha Allah ku dhaqmay ku camal fal Allah inaga yeelo Allahumma shfi maradana warham mawtana wa'afi mubtalana dambigeena Allah dhaaf dambiga waalidiinteena Allah dhaaf diinta Allah inoo macaaneeyo salaada Allah inoo macaaneeyo asturka Allah inoo macaaneeyo jilbaabka qaadashadiisa iyo xijaabka Allah inoo fudaydiyo dhalinyaradena wiilasha gabdhaha Allah inoo hadeeyo isma hadeyn kara Allah inoo hadeeyo isma toosi karna Allah inoo toosiyo dad wixii naga bukana caafimaad sariic Allah siiyo qof kasta oo xanuunsan oo xanuun dareensan meesha uu ka buko caafimaad Allah ka siiyo qof kasta oo qurba ay saaran tahay oo faraj raadinayna faraj
sariica Allah siiyo qof kasta oo muraadkiisa oo macsiya ugu jirina gacanta midig Allah ka siiyo amniga iimaankana Allah inoo adkeeyo dalkeena nabadiisa Allah inoo adkeeyo madaxdeena wixii diintooda iyo dadkooda iyo dalkooda u daran Allah garansiiyo muslimiinta meel joogaan muwaafaqeen midnimana Allah na siiyo annagana insha Allah dambi dhaaf Allah inooga dhigo abaarta iyo roob la'aan baa jirto biyo la'aan baa jirtay roob khayr badan oo si sariic Allah inoo siiyo barwaaqo sariic Allah inoo siiyo samada roob khayr qaba Allah inooga keeno dhulka rays fiican Allah inooga soo saaro dunuubtayada Ilaahu ha nagu qabanay naxariistaada Ilaahu nagu soo daymo saan Ilaahu anagu nagula tacaamuline saaduba ata Ilaahu nagula tacaamul wiilasha iyo gabdhaha Allah ha noo hagaajiyo barashada diintana Allah inoo dhib yareeyo macallimiinta iyo mashaayikhdeena iyo ducaada iyo aimada iyo dadkeena khayrka ka shaqeynaya khayrka